hararaha iga istaageen oo waxay yiraahdeen hadda wiilkaan dilayso anagu dhan waan wada dilaysaa ninkan keligii dilmiis ma dilaysaa qonkaygaasi inuu baahan yahay dhakhtar specialist ah oo wuxuu ii sheegay wax galeen la yiraahdo oo isna dhuunta ku jiro dhinacaana oo isaga la shaqeeya niyahow 2 bari markaan 3 bari caadi ahaado haddana habeen labaadka uu xanuunaya xanuunkaas baa marka wuxuu igu yahay mid daran oo hurdada iga kaxaynaya laakiin waxaan uga soo socdaa inay u qaateen qofkaani oo balwad buu leeyahay wuxuu u dooranayaa shaqadan fudud ma shaqaystamiyaa shaqadan kama soo bixi karo ma la aamini karaa wax badan qofkii isweydiinaya hadda caruur ma aabe ma laakiin waa soo gursaday ilaahay qadartiisa laakiin caruur hadda ma jirto Cabdisamed oo muuqaal barahiisa bulshada soo dhigay asaga dabcan nooga waramaya oo ku saabsanaa inuu shaqo doon yahay shaqadu rabayna ay tahay shaqo inta badan aysan ahayn shaqooyinkan dadku doonaan ay tahay shaqo ka duwan shaqooyinka kale oo ah shaqo fudud inuu raadinayay una sheegay inay tahay duruuf asaga u gaar inuu shaqooyinka kale shaqooyinku raadinayna ahayd shaqooyin inta badan wadanka markii la joogo dad ajnabi ay qabtaan وسنا كحومين رساقة إلهي دتك أو قري وأصاغو ودوني ومحي إلهي أو قري جعلان لهاي العاوية عبد السمد شيكا كليا معها واحد عبد السمد شيكا بدن أو قرصون السلام عليكم صاحبيال سود وهذا ميل البجوكتان بودكاستي دي هوران سمين جرني مانتي وكدوينها بودكاستي يجو وحمرتينو عن اللي هذا عبد السمد صلاة محمد ونن اللي يراء عبد السمد وحان isku helnay ama aanu ka wada hadalnay dhanka mobilka kadib muuqaal ninaan saaxiibanahay waliba ila soo wadaagay oo Cabdullaahi Bootaan la yiraahdo halkan uga salaamayo Cabdisamed sheekada kaliya maaha waxa jira Cabdisamed sheeka badan oo qarsoon oo aanu rabno waxa weeye annagoo ka wareysan doona waayihiisa nolosha xaaladihii iyo duruufaha gaarka uu shaqadan u doonayay iyo sidoo kale dhibaatada dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo dhanka shaqada laftarkeeda ka haysatana waanu ka sheekaysan doonaa Cabdisamed soo dhawow hadaan magaca khalday sorry waan dhawahay walaal aad baad maasan tahay waana ku dhawahay waana ku salaamaya adiga tiimkaaga aad baan kaaga mahadcelinayaa inaad ugu casbtay xafiiskaaga waliba si aad u weyn waan kaaga mahadcelinaa adigana soo booqashadaada farxad bay noo tahay runtii markaan Cabdiqani sheekaysana kadib baan u bandhigay inaan program sameeyno asaguna waa iga ajiibay marka koowaad waxaan rabaa in dadku si noola jaan qaadaan muuqaalkii abraha bulshada soo dhigtay iyo wuxuu ku saabsanaa iyo ujeedka uga gol lahayd marka hore inaad dulmar guud aad iyo aad anigu horta Cabdisamed baan ahay nin iska hadda reer Garowe baan ahay Garowe ku noolaa oo aan ka shaqaysan jiray waxaan ku shaqaysan jiray xirfadda taksiga gaari baan lahaa taksi la lahaa jiray muddo hadda 6 sano ku dhow baan Garowe ka shaqaynay taksi baa ahaa dabadeedna anigoo shaqadayda iska wata ayaa qadarta Ilaahay xanuun baa iska yimi waan yar xanuunsaday gaarigii koowaad xanuunka dartiis iyo hawlo kale oo dhanka family-ga baan u gaday inta markay dhacday gaarigii aan gaday xanuunkaygu wuu sii darsaday waxayna noqotay inaan dalka wax badan looga qaban karo bay ila muuqatay xanuunkaygu aad ma weyna laakiin waa wax iska qadar oo waa xanuun ku saabsan qanjir meelahaas laga hayo iyo dhinacaan oo dhan oo surka dhunta ilaa garabka gadaashiisa ku saabsan xanuunkaasina wuxuu ka mid yahay macnaha muuqaalkayga waxaa ku jirtay inaan shaqo gaar doonayo sababina ay jirto marka sababta xanuunkaas uu ahaa horta oo aadan qaban karin shaqooyinka culus oo haddii aan wax culus qaado macnaha xanuunkiiba macnaha sii damqanaya alxamdulilaahi rabbil caalamiin waa qadar ilaahayna inuu iga caafiyo aan rajeynayaa caafimaadka dee Allah haya bini aadan ma hayaan ilaahay baan ka sugaynaa qof walbaana waa u baahan yahay sidoo kale waxaan rabaa inaan u duceeyo qof kasta oo islaam oo xanuunsan inuu ilaahay caafimaad siiyo haddii aan usoo noqdo fideoga qaabkaasaan horta usoo duubay shaqadana qaabkaasaan u raadinayay haddaan wax yar dib ugu laabto xanuunkaygii iyo sheekadiisa
gaarigii markii aan gaday oo dhakhtar aan tegay dee lacagteedii dhakhtar bay iskaga dhammaatay muddo ka bacdiina xanuunkiina aanan ka bogsan waxaan go-aansaday xanuunkayga inaan baraha bulshada kusoo bandhigo xaaladayda caafimaad dabadeedna dadkii way arkeen si weyn bayna uga falceliyeen dad badan baa ila soo hadlay mar hore eed xilligaa hadda waxaa kasoo wareegay sanad 2024 dhammaadkii ma ahayna sanadkan bilowgiisii bay ahayd waqtiga aan soo dhigayo waxay ahayd subax ciiday ba ahayd bishii Ramadaan muuqaalka aamin qoraal buu ahaa kaas intaa markay dhacday adigu dadkii dee waa xaaladaydii waa la qaadaa dhigay si fiican baa looga hadlay meel dheer bay gaartay intaa ka bacdi dad familkaaba lacag $1,000 ka bacdina waxaan aaday Ethiopia meesha jigjiga la yiraahdo baan tagay dhakhtarkii jigjiga baaritaan guud buu mariyay caafimaadkayga sideeda kale wuxuu yiri ma sha Allah waa fiican tahay laakiin saddex xanuun baa jira waa gaas dhiikar iyo xanuunkaas qanjirka marka wuxuu ii sheegay inuu u baahan yahay dhakhtar specialist ah iyaguna hadda aysan qali karin balse uu daawooyin kaalmaatiya iyo qorayo dibna aan ugu soo laabto bal si uu u ogaado xaaladiisa soo noqdo daawada dhiikarkana wuxuu qoray daawo ka weyntii hore oo dhiikarkii uu yara degay ma sha Allah ilaahay maadis iyo kiniinadii gaaska caafimaadkayga kale ee guud wuxuu ii sheegay inuu yahay mid fiican intaa ka bacdi waxaa jirtay inaan numberkayga geliyay Facebook oo postigii markaa soo dhigay dadka waxay igu dhiirigeliyeen inaan numberkaygana ku soo daro markii hore qoraal caadi ah baan iska soo qoray xanuunkayga ka warramayo dadka anigu xumaan weydiisan dabeedna dadkii baa igu dhiirigeliyay inaan numberkayga ku daro postiga si dadku ma garanaysaay dee waxay igu soo diraan dabadeedna lacag $150 baa jirtay iyadoo numberkayga dadku kusoo dirdireen khayr Allah siiyo waa mahad celinayaa dadkii soo diray sadaqa jaariya Allah idinka dhigo waan leeyahay adigu dhowr bari ka bacdi markii aan dhakhtarkii ka soo baxay ayaa waxaa jirtay gabdho aan halkaan uga mahad celinayo khayr Allah siiyo oo Yurub jooga gaar ahaan waddankay joogaan Denmark iyo Belgium aan isku qaldaa baa waxay soo direen lacag $1,050 lacagtii soo gaartay marka waxay ahayd $2,200 lacagtii hore badankeed waxay ku baxday dhakhtarka jigjiga marka lacagta $1,050 ay soo gaartayna waxaan dee qiyaastay inaysan suuragal ahayn inaan dhalisba ku aado oo meesha ugu sokayso dhakhtar specialist ah oo dhinaca dhuunta laga helay Addis Ababa ahayd aysan ugu filayn lacag badan baa lagu sheegay markaa dhakhtarka specialist ah waa qaali baa lagu yiri laakiin anigu xoog dhaba kama hayo laakiin waa sida la ii sheegay imsa lagu yiri meelaha ma garanayo wallahi 6,000 ma qaano qofba waxba ii sheegay laakiin wax cad oo dhaba kama hayo laakiin kul marka lacagtaada kuma gaarsiinayn dabeedna waxaan go'aansaday inaan waddanka iskaga soo laabto intaan soo laaban yana ku sheeka dhaafina dhakhtarkii ballan baan lahayn ballantii aan ku laabtay mar labaad wuxuu ii sheegay qonkaygaasi inuu baahan yahay dhakhtar specialist ah oo wuxuu ii sheegay wax galeen la yiraahdo oo isna dhuunta ku jiro dhinacaana oo isaga la shaqeeya thyroid glandka ma garanayo isaguna inuu xanuunku gaaray oo hadda marka qaarkood ayaan ka dareemaa xataa ilaa hoos marka qanjirkan iyo xanuunka ah iyo dhinaca oo dhan waxba kama qaban karo oo xididkaas hadda dabcan waa ujeedaa waan malaynayaa ninka la yiraahdo uu ka kacsan yahay kan kale marka loo fiiriyo dabeedna waddankaan iskaga soo laabtay halkan aan imi markii aan halkaan imi gaari yar oo duuga baan gatay oo lacagtii yarayd aan isoo hartay aan ku gatay waxaan go'aansaday inaan ilaahay iska tawakkalo alle baan baryay shaqadeedii inaan dib u bilaabo markii aan shaqadeedii bilaabay oo muddo hadda bil ku dhawaad aan waday ayaa xanuunkii haddana soo laabtay
isagoo waliba sidoo hore ka tartar waalan oo aad buu u bararay hadda wax barara ma leeyahay alxamdulilah rabbil caalamiin dabeedna gaariga aan dib u gaday adigu sidii aan dhakhtar uga daba wareegayay wixii yaraa way iska yaraa baabeen iyaguna alxamdulilah rabbil caalamiin markii dambe waxaan go'aansaday inaan dhirta herb dabiiciga aan kula tacaalo waxaan dhihi karaa dhirtu wax badan bay ii tartay alxamdulilah rabbil caalamiin oo caawa inaan sheekeeyo oo hadlo ilaahay ka sukow dhirtaasi wax badan bay maaragtay ilaa hadda dhirtaas isticmaashaa dhirtadan isticmaal iyagaan kaalmaati ahaan u isticmaalaa naa garta dawo ma isticmaasho dawo waxaan ka isticmaalaa daawada dhiikarka iyo midda gaaska dhakhtarkuna isaga miyaa yiri ayada dhiikarka iyo asaga kicinaya miyaa gaaskaba gaasku dhiikarku kiciyaa gaasku labada xanuunba uu kicinayaa midkan qunka uu kicinayaayo marka dee habeenkii aad seexato neef buu keenaa gaasku habeenkii soo baxda oo macnaha waxaan ula jeedaa ma ahan neeftii asmada ahayd laakiin afka iyobuu ma garanaysaa gaasku waa xanuun caloosha ka yimaada may waa garanaya laakiin waxaan ka wadaa ma xanuunkaana sababay gaaskan iyo dhiikarkaba isagaa sababay oo sababta u sababay waxaa weeye awal maada qabin dhiikarka wuxuu ii sheegay dhakhtarku inuu gaasku sababay inuu xanuunkaani sababay gaaskana waxaa sababay daawooyinka tirada badnaa aan u qaadanaya xanuunkan markii hore gaas ma aanan qabin wax gaasa ma aanan qabin hadda sanad baa ka soo wareey cunada ma kala tooran jirin wax walba caadi bay ahaayeen dhiikarkuna ma jirin laakiin dhiikarka wuxuu ii sheegay inuu xanuunkaani sabab yahay oo dee markuu nabarkii meeshuu ku daaho wuxuu sababayaa dee dhiiggaagi mar walba inuu waa qandhoonaysaa qandhay leedahay markaa qandhoonto oo lagu ku xanuunaan oo mar walba ay kugu soo noqnoqoto muddo dheer buu xanuunkaani soo jiray waxaana u aanaynayaa cadgo inuu ka yimi shay culus oo aan qaaday oo xididkaas iyo garabkaas iyo aqoonkiisaas adigu waa iraado ilaahay waa wax uun qadar ilaahay waa garta kadib dhakhtarkii kadib dhirteedaasaan isticmaalaa hadda sidaas xaalka uu yahay marka dhakhtarku daawada dhiikarka uunbaa lagala dardaarmaan laakiin inta kale waxaa dawada dhirtaasaa qaadataa dhirtaasaan ka qaataa sababtoo ah dhirta aniga iskay u doortay maadaama dee kiniinkii antibiyootiga waxba ay tari waaye hadda ka waran xaaladaada caafimaad hadda waa sidee xaalad alxamdulilah rabbil caalamiin ilaahay baa mahad iskale dhiikarku dee waa xanuun iska normal oo ummadoo dhan baa qabtaa may waxaan sheegayaa kan niyahow 2 beri markaan 3 beri caadi ahaado haddana habeen labaadka uu xanuunayaa markaas xanuunkaas baa marka wuxuu igu yahay mid daran oo hurdada iga kaxaynaya cunooyinka qaar ama markaan wax macaan dhadhamiyo wuu ka sii darayaa qabow maba cababo dee waayo hore ay ugu dambeysay marka that's why shaqadan marka sababta shaqadan fudud u dooranaysaa sababta aan ugu muhiimsan oo aan u socdo waxa weeye oo shaqadaas aan u dooranayo raadi shaqada marka waan raadiyay sababta aan u raadiyay ma sababta aanan u helin markii hore shaqada oo aan u aaneynayno waxa weeye 2 qodob baan u aaneynaya waa qodobe xanuunku dee waduu kugu daaho jirahaan buu ii bedelay aniga shakhsiyadda oo dina sidaan u egmaan lahayn alxamdulilah rabbil caalamiin bini aadamkuna waxaa jirta dabeecad ilaahay ku abuuray oo dadku indhaha ayay wax ka cabiraan iyagoo aan wax faahfaahin helin indhahu garaal ma saas ma dhax waxa weeye qofkay arkaan iyo dharku qabay ku qiimeynayaan dabcan laakiin waxaan uga soo socdaa inay u qaateen qofkaani ma balwad baa jirta oo ma balwad buu leeyahay muxuu u dooranayaa shaqadan fudud ma shaqaystemiyaa shaqadan kama soo bixi karo ma la aamini karaa wax badan buu qofka isweydiinaya markuu dee appearance-gaaga arko marka meelaha tagtay waxaa laga yaabaa kambaniyo waaweyn waa u tagtay ma lagu soo dhaweeyey mase wallahi dadku dee waa dad islaam oo dadkeenni wey waa dad Soomaaliya waa lagu soo dhaweynayaa laakiin shaqo ma jirto laakiin haddeer kambani weyn oo aan si toos ah xafiiskooda u tagay oo macnaha waxaa ka hadlayaa kambaniga macnaha waxaan la kulmayay dad uun shaqaalihii hoose aan la kulmayay iyaguna dee waxay ii sheegayaan mar walba shaqadaas inaysan hadda banaanay
maxaa hadda isleedahay haddii kambaniyo shaqooyin noocaas oo kala qabta fariina u diri lahayd si ay ku garab istaagaan? intaan su-aashaa ku weydiin waxaan kaloo ku weydiin lahaa inaad shaqaysataa rabtaa, qof kastana wuxuu nool yahay inuu shaqaystoba. adiga ma dhalinyaraabaa tahay, ma aabba caruur joogtaa tahay? laftarkeedaan raba inaan ku weydiiyo haddii macquulta. wallaahi su-aashaasi waa su-aal maasha allah weye. anigu nin yahow hadda caruur ma lehi, aabbe ma ihi, laakiin waan soo guursaday ilaahay qadartiisa, laakiin caruuri hadda ma jirto. laakiin adaa raba inaad shaqaysatid oo naftaada kaafis. iyo hooyaday waxaa jira dee hooyaday iyadoo mar kasta waa igu xiriirtaa. absolutely. laakiin dee aniguna dee waa inaan shaqeeyo. markuu qofku isagu wax soo saar leeyahay ayuu qof kale wax tari karaa. marka haddii aan anigii marka aan noloshii caadigeeda aan dhacsan karin, qof kale waxaa ma tari karo. waxaan ku rabay inaan ku weydiiyo, waxaa ka sheekaysay fiideoga markii aad ku hadlaysay in aad ilaahay bixiyo irsaaqada, hadda ka hor aad shaqaysan jidho ladnayd afrikada aad ka shaqaysan jidhay. ka waran ayadaa nolosha siday ahayd, goormaysa ahayd, siday ku bilaabatay noloshaas? wallaahi sheekadaasi waa sheeko dheer. waa macnaha yaana idin sheeka dhaafin. cabdisamed markaan sheekaysan wuxuu ii sheegay inuu buug uu qoro uu wado ku saabsan noloshiisa oo iyo halgankii uu noloshiisa la galay oo ku saabsan sheekadiisa. anaa waxaan ka codsaday maadaama uu buuggii wado ku saabsan tahay noloshiisaba inuusan wax badan oo detail uusan bixin karin, laakiin inuu wax u nooga taataabto si ay dadku wax badan uga bartaan. marka soo dhawaad cabdisamed. haa walaalo, sidaa sheegtay sheekadaas buug baan ka wadaa, taariikh nololeedkeeda ku saabsan. buuggaasna insha allah qorshihiisa waan wadaa. waxaana rajaynayaa insha allah in ilaahay ii fududeeyo uuna soo baxo, nololna ilaahay igu siiyo markii aan soo saaro insha allah. niyahow sheekadaydu anigu qurba joog ma ihi. dadku waxay dhahaan qurba joogga waxay u yaqaaneen dadka ku nool wadamadan cadaanka galbeedka westernka. western markay ku leeyihiin dad badan baa ku nool western oo galbeedka adduunka ku nool, laakiin inagu western waxaynu u naqaanaa wadamada cadaanka. laakiin anigu meesha aan tegay waa africa, meesha ugu badan aan joogay. oo halkan waxaan ka baxay bishii abril meesha la magaalada Boosaaso 2008. waxaan maray dhowr wadan oo Afrika ah oo ay ugu horeyso Kenya oo aan darisnahay, Tanzania ku xigto, Malawi ku xigto, Mozambique waan qayb ka maray, iyo wadanka la yiraahdo Zimbabwe. ka bacdina waxaan tagay South Africa. South Africa marka waxaan ku noolaa waqti runtii aad u dheer oo marka loo fiiriyo qurbaha muddo adigu 11 sano baan ku noolaa. marka 11 sano iyo sheekada intaanu gelin wadamadan hadda tirisay ma waqti baa sii joogtay ma soo transit baa ku ahay? wallaahi kuwana wax badan ma ana joogin, qaarna xoogaa baan joogay. oo ka shaqeynaysa? maya kama ana shaqeynay. laakiin safarkaaga sahayaankayga baa ku sii jiray. marka waxaa ugu horeeyay wadanka Kenya la yiraahdo, oo Kenya wax dhibaato ah kala ma ana kulmin. xaggaas laftirkeeda wadamada kale wax dhibaato weyn kala ma ana kulmin, laakiin gelitaankayga Kenya baan xoogaa wax dee aan dhihi karo waa dhib aan kala kulmay. 2008 markaan ka baxay waxaan maray meesha la yiraahdo, waxaan ka galay Kenya meesha la yiraahdo Dobley. intaan gelin gaarigii naga qaaday meesha la yiraahdo Beledweyne wuxuu na geeyay meesha la yiraahdo Balaxaw, xuduudka Mandera iyo Balaxaw. marka gaari kale naga saareen oo baabuurtan qoryaha la saaray 4F ka la yiraahdo. gaarigii wuxuu na geeyay meel lagu magacaabo Diif Soomaaliya. Diif marka meeshaas ma aan ilaawin oo waxyaabo aan la ilaawi karin baa jira. subax bay ahayd alasay ah markii meesha aan soo istaagnay oo gaarigina istaajiyay.
isla markiiba gaariga waa kala wareegay oo dabcan qolo kale nagu wareejinay dhalinyaro badan baan ahayn aniga laftkayga dawaagaas nin aada u dhalinyaro baan ahaa meeshii markii aan istaagnay oo aan cabaar joognay nimaan qoryo wataan noo yimi nin oday oo garcas baa ku jiray ayaantaas marka waxaa jirtay nimankii la oran jiray onalif midhaa rag ka mida miyaa halka laga dhiibay mise si kale wax u dhaceen ma garanay middaa anagu war uma hayn dabadeedna dhalinyarada kale waxay ahaayeen reer beled weyne anigoon baa dhanka puntland ka tegey dee nin reer puntland weligaan puntland ka tegay inuu dhalinyara waad garanaysaa laajadiisu dee waa afka hore horaa laga garanaya dabadeedna nin odaya baa wuxuu yidhi warrinkaani ma reer hebel baa reer hebelka uu sheegayo dee igama foga laakiin ma aan ahayn aniguna dee nin dee soomaaliya weligii ka tegin baan ahaayo waxaa igu jira qabkii odagu qori buu wataa marka si inuu u dhiil la hadlayana waan dareensana markaasaan ku yidhi maxaad ku samayn lahayd naf ayaa ku haya oday ragga iyagii baa halkaas waa kaas waxbuu shubay qorigii buu la kala baxay oo adigu raggii kala intay qabteen qorigii ka qaaday intaysa qorigii ka qaadeen waxaan aada ugu mahadcelinayaa dhalinyaradii kolley magacyadoodii si fiican uma xasuusto aan la socday dad gobay ahaayeen qiimo badan hareeraha iga istaageen oo waxay yidhaahdeen haddaa wiilkaan dilayso dee anagoo dhan waa na wada dilaysaa ninkaan keligii dili mayso ma dilaysaa waa jirta runtii ma aanan ilaawan dhalinyaradaas hadday wax ka nool yihiin hadday wada nool yihiinna oo muuqaalkayga gaaran waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin abaalkiina intaan noolahay ilaawa maayo dad qiimo badan baad tihiin waa jirta iyo sidii kale raggii kale ee meesha joogay iyaguna ninkaa odayga ah isagana dhiigga ka badbaadiyay anigana nafteeda badbaadiyay intaa markay dhacday baa gaarigiina qaadi lahaa yimi dabeedna gaarigii markii yimi nin baa watay magaciisa maana ilaawan moolaq baa la dhihi jiray ninka watay haa waa garta moolaq sheekadii ma dhexdaa loogu soo sheegay ma garanayo isagoo aada u xanaaqsan buu intuu meeshii soo istaagay wuxuu yidhi maano waxaasaayabaad reerkaasabaad isku dayaysaa waxaas oo rag dadkayga maaragtay aad rabtaa inaad layso odayga duurku sii galayba markuu moolaq soo galay waa garta adigu calaa kulli xaal meeshii baan ka baxnay waan tagnay waxaan tagnay meesha la yidhaahdo tii ugu sokaysa maxay ahayd magac bay lahayd dhagaxleyna ma ahayn mise magac kale lahayd baan malaynaya aduu xeryahan dhadhaab iyo dhagaxle mid ahayd si ma kala xasuusto mid ahayd labadaasaan mid tagnay habeenkii baa sii joognay maalinta baan kasii baxnay gaarisa meesha la yidhahdaan tagnay waa garta gaarisa markaan tagnay waxaa dhacday qaabkii aan ku geli lahayn Nairobi baa weli nala kasii mukhalisaynaya waana meeshii igu yaabka badnayd wey meeshaas igu adkeyd macnaa safaraan galo safarkii gaarisa iyo Nairobi annagoo dhan macnaa aniga dadkii nala socdeen gaariga lacagta qaada faamka ah uu qafilan yahay baabuurta lacagta lagu qaado waa gaari daboolan oo qafilan lacagta bangiyada oo dee tuuga dhacayso waa gaari adag oo aada loo adkeeyo oo sida macnaha baabuurtan amoorka la yidhaahdo ee ciidamadu isticmaalaan oo kale dabeedna gaarigii qafilaa baa la gaarigaasaa laydinku gelinayaa Nairobi haddii kale booliska aada qabanaya meel ka baxsan magaalada Gaarisa oo buundaa laga gudbiyay buundada markaan dhaafnay meel waxaa nala ku leexiyay toga oo meeshii gaariga nala kaga guray gaarigu waa jaq xataa neef meel ay ka baxda malaha استغفر الله أنا كل حفظ قارب أمر ما هو كتندر كتندر عادي ما لقى نفس الملأ ما لقى نفس الملأ قارب مركن لو كقري وان بحناي عبار مركز أنا قرحت أنا واكل لي وأنا قسكي نودي هاي هذا إلى ما أنت قراع سنة الله المغلمي وقراع ساعد كل جيسان يسمونه وحن سفي عن حسوستي إذا ما قرني لكن كبر إني الصوح ذي بان قياسية دي كل جاي نفط أنا قبض أنا وحالتي كتير ربع إرادة إلهي
cirka ilaahay roob ka keenay roob baa namaasheeyey roobkii markuu namaasheeyey kuteenarkii amaya qoyay qabowgii ma garanaysaa baa ilaahay amarkii oxygen sameeyey waa wax macnaha cajiiba oo qof walba u baahan yahay inuu ku qudro qaato qabow baan dareenay oxygen baan helay inaan macnaha waan neefsanay caadi sidii inaan meel caadi joogno inkastoo weli aanu maaragtay waxaysanahay haddana nafis baana galay macnaha naqaskiina hayo waa naga fuqay adigoo waxba yaana sheeka kugu daalanay sidii baan Nairobi ku galay Nairobi markaan galay waan tagnay anigu maskaxiyan waan dayoobay dayo wax leeyahay jira ma ogtay qofku jahadii inuu ka qaldamo jahada dhawaa yar qaldan jahadaasi way ka qaldaneed ilaa aan Soomaaliya ku soo laabtay maaminaysa after 11 years كوي توكا سنة وكا خلدي way ka qaldaneed marka ولا كونتينر كي وكا خلدي كونتينر way ka qalday markii halka inuu waan caadi noqday أنا waxyaabo uu qofku ilaawi karin ma jira inkastoo aan halka details ka aad hoos galay aan jeclayn inaan maaragtay buugayga ku soo dar lahaa waa sheekooyinka ka mid ah Kenya saasa ku galay marka bixitaankayga Kenya waan ka baxay waa iska isbahay nin dhalinyaro baan israacnay oo isagu reer South Africa ahaa markaas South Africa deganaa أصليا أنا كينيان معنا هو صومالي لكن صومالي كينيان عمر بانتو بالو رجلات المغلي سجن مسرعني وحن كبحي ماشي اللي هذا نرى وحن كبحناي كتير دمالي هذا نحن نشوفنا وكبحناي أدو واسي بحناي وتنسانيا تكني تنسانيا مركان تكني دار السلام عاصمة تكني مركان ماشي تكني ويلكي dhexda markaas sii soconay baa wiilkii wuxuu naga haray meel maqaaxiya si accident ah oo aanu ka qadaynaynin aniga baskari waa ku soo haray how are you hatta ma qaano xaalad baa ku jira markaa baasaboorka aan wataa markaa waa fujis ma jirin baasaboorradan digitalka macnaha baasaboorradan garanaya kii sawirka lagu dhajin jiray waana Kenyan inaan qof Kenyan ah ku maraya meesha luqadeena ma taqaan wadankaasna waxa looga hadlaa luqadii ma Swahili baa looga hadlaa Swahilina ma aqaan English ma aqaan English waa luqadii internationalka ee caalamiga ah iyadina garan maayo Swahilina ma aqaan bas kan hadda dib eegaya ninkii baa la hadleen markii waa gabar Soomaali ah saaray gabadhii Soomaalida ah oo Soomaali Tanzania waliba Soomaali Tanzania baa jira dama qashid Soomaali Kenya gabadhii baan waxay la hadashay ninkii waxay sheegtay wiilkan xaaladiisu waa sidaas marka nin baa la socday turjubaan u ahaa ninkii la hadal baska dambe soo raacay adoo baska dambe waa waska dambe wiilka soo qaaday aad baan uga soo fogaanay marka masaafo dheer baa noo dhaxaysa soo socday gaariga istaankii soo istaagay Umar nin fiican buu aad buu dadaalayay baskii dhexdu kaga soo degay mooto soo qaatay haye soo ku soo gaaro anigu meeshii baan ku degay waa la yaqaanay nimankan waa hore ka qabsanaya isla markiiba gaariga daaqadiisa iftaagnaayeen dhabaysiya waxay yiraahdeen xaga ka timi oo de af Swahili ah waxbadii ma kala aqaan waxaan ku waashay kelmad Ingiriis oo brogo madaxan isu galiyo waxaan ay Kenya way iga dhigtay iyaga mar waa qoslaan marna waa jiidaan waa gart marka way ka xayeen meel bay geeyeen iyagoo markaa meeshii u haystaa wiilkiisa soo tagay dabeedna Umar baa la hadlay oo de Umar waa nin Swahili ah waa meesha la Dar es Salaam baan marka subaxdii dambe hotel Urub hotel yaa ku yaala Dar es Salaam hotelka sameeyay siixanay oo ay Soomaali leedahay subaxdii dambe baskii ka goosanay Malawi baskii subaxdii markaa fuuray subaxdii igu yaabka badnayd bay ahayd marka oo wixii igu yaabka badnaa aan arko معنا أفريقيا مركز إيه بلاوت. طاقتي بقى واحد اللي يجسوا قلي لوف روتي كان سلايسكا معنا قف بقى قضية. يصير الصلان أو علاش أنت اللي قبل حيي. قاري صار لوجوه ها. مركز ولا يقف صور أنا مركب وما تيجي عارف إنه واحد يقال معنا حي. والروتي كقاعدة ويراد ويصير كاي وحاس هذا سيفير
rooti baan ka qaadanay adigu waxba yaan shaka ku dalay sidaan ku baxnay Malawi baan maray Malawi wax dhib basaas kuma aan arag Lilongwe meel la yiraahdo oo caasimadeeda ma tagnay meeshaas xoogaa joognay adigu ayaamo muddo hadda dhowr iyo 20 bari ka bacdina waa ka sii baxnay meeshii waan ku sii xanuunsaday oo kanaaca igu dhacday kanaacada waddanka Afrikadaasi waa dhul webiyaal badan oo dhir badan oo qoyan kanaacadooda shimbirtay leegtaa yacni weynaan intay ka qabto shimbir yacni marka waa weyntaa macna aad bay wala weyntaa u jeeda qaniyadeeda xataa waa dareemaysaa in wax weyn ku saaran yahay aduu waa kanaaca igu dhacday alxamdulillah meeshii waan ka baxnay xuduud la yiraahdo marka juqraafi ahaan meesha la yiraahdo Zimbabwe Malawi iyo Mozambique waxaa jirta meel yar oo isugu yimaadaan Tete la yiraahdo hada meeshaas aan uga gudubnay habeenimo aan dhex marinay marka meesha la yiraahdo Zimbabwe sidii baan South Africa ku galay adigu South Africa marka sheekadeeda way dheer tahay marka waxaa jeclaan lahaa badideed maxaa ku taabato buugga ku taabato meesha aan u soconno oo tan ugu weyn oo sheekada TikTok kaga hasho inaad mar waxa way ahayd nin laadan oo hantidii ka baabaaday hanti waa lahaan jiray dukaama jiray markii hore shaqa laga bilaabo South Africa waan shaqayn jiray qofku markuu shaqeeyo tabaadna dukaamu shar ku darsadaa dukaamada wax lagu darsadaa marka inta badan Soomaalida meesha dukaamada ka samaystaan dadku waxay u qabaan magaalooyinka waaweyn ma aha magaalooyinka waaweyn waa tuulooyin ay ku nool yihiin dadkan South Africaanka dhaladka ah oo ka baxsan magaalooyinka wadanku dhisayn ahaan iyo qaabku u samaysan yahay waa Yurub macnaha jidadkiisa diplomatiga wadanku soo horumarsan yahay laakiin marka tagto meelahaas ay dadkeenan Afrikaanka ay ku nool yihiin laanagu Afrikaan baan nahay waxaad soo xasuusanaysaa Soomaaliya meelaha ugu liita marka meelahaas dukaanka lagu laakiin lacag baa taala dadku lacag bay helaan way shaqeeyaan way shaqo tagaan lacag bay la soo baxaan lacagtoodaasay wax kaga gadanayaan halka cilad ay leeyihiin waa dad u samaysan inay wax dhacaan oo qofka inay dhacaan waxayba u arkaan nasiib ama xadar habarta waayeelka ee 9 jirka hadday ku soo gasho waxaad ku khasbantahay inaad iska ilaaliso haddii aad shayga ku qabato xataa iyada iyo la yaab iyo ma jiro waxay ku leedahay ismay laki waa nasiibkayga qofka ugu hagaagsan South Africaanka dadka South Africaanka ka hadlaya macnaha qofka ugu jecel yihiin ugu qiimo ugu qadarinta badan yihiin ugu ixtiraamka badan yihiin qof wax dhaca waa qofka wax dhaca sabab laakiin waliba qof nasiib badan bay u yaqaan laki maan bay dhaca sabab bulshada laakiin saa ugu arkaan in qof dhacaan iyo waa laba mas'alo waddankaani Afrika wadamo badan ku dambeeyay xagga xornimada oo 94 xornimada qaatay dadka uqdad baa ku beera cid kasta oo u timaada waxay u arkaan maadaama si xun loo gumeystay inay yihiin isla apartheidkii dadkii gumaysan jiray waxaa kaloo jirta diin la'aan kristiyaanadii waa lagu ku faafiyaan laakiin badi dadku waa dad muxlidiin oo aan wax diin haysan marka wax ka celinaya adiga ma jiro qofkii sharciga waxay tahay waxa kaloo jirta dawladda oo fududeysay xiridda dadka oo dadkii waxaad moodaaba qof waxa arkaysa shalay wax dilay hadana maanta banaanka jooga sabab lama yaqaan sharciga khafiifa miya sharciga ma garanayno kulley waxba xaqooda marka dawladdu xoog badan ma wasaaro qofkii wax dhaca hore laga sii deynaya hore laga sii deynaya way jiraan de kuwa dhaca bangiyada iyo meelaha soo kale ayaga waxa dhaca ayaga kuwa dhaca robbery iyo thief baa loo yaqaan kuwa Soomaalida dhacaya hanti ma yaqaano iyaga thief bay dhaca thief waa iska tuug yar kan bankiga weyn dhacayana waxa uu yaqaan robbery waa macnaha waa tuug weyn kaasay marka la macaamilado criminalka saxda kan sharcigiisu ma xoogana laakiin kuwa nafta gooyana waa same waxba laga soo qaadi maayo dhibaatada kale oo jirta waxa jirta wax la yiraahdo waxay sameeyaan adiga ma ku dhaceen waddankii maadaama waddan horumarsan yahay wax walba laga helayo dukaanka alarm ku xiranaysa alarmigaasi wuxuu ku dhacayaa saldhiga wuxuu ku dhacayaa oo kale
kambanigii security-ga uu kuu soo xiray saad u taabato isla markaa way ogaanayaan adigu dee Soomaali baa tahay ama Bangladesh baa tahay ama Pakistani baa tahay ama Ethiopian baa tahay waad ka khafiifsan tahay dadka dhaladka ama hindida hindidu dad cajiiba wey oo wadanka aad qaalib badan ku leh marka ayaga waa la ixtiraama ma dhihi karaa waa kaalinta labaad marka cadaanka laga yimaado waa la ixtiraamaa aad baa loo ixtiraama isna sidoo lagu degdego marka markii adigii lagu dhaco oo gabaleelkii taabato oo ku dhaco saldhiggii booliska waxay sameeyaan markay ku dhacaan oo waxay dili lahaan ay dilaan oo waqti ay ka soo wareegto imaanaya markaas waxay ku sameeyaan wax la yiraahdo investigation baaritaankaas oo iska soconaya aakhirkana freezing buu iska noqonayaa oo faraha laga qaaday lacagta un baa kaaga dhamaanaysa ma yaan lacagta Soomaalidu isku wareegsan oo way yaqaaneen ana waxa ka soo baxay marka waxay ku leeyihiin hadii isla markaaba la yimaado meeshii dee waxa laga cararayaa in meeshii dhimasho ka dhacdo oo dhimashada anigu soo naf ma leh bini'aadam kan dilaya ma iga qabato marka waxay imaanayaan kadib wixii markay dhamaadaan taasa marka u fududeysay tuugada inay badato Soomaalida inta badan lagu laayaba ka Soomaalida sababaha Soomaalidu way ka duwan yihiin ajaanibta kale Soomaalidu dad adag oo qabla Soomaalidu qoryaha wadanka waa sharci darro hadaa qori soo qaadato waa illegal xabsi oo ku mutaysanaysa Soomaalidu marka qoryaha soo qaataan si adigu farsamo adag ku soo gataan qorigaaga saa qarsanaysa isaga isku difaacaysa laftarkeedu Soomaalidu way laayaan tuugada oo way iska dhiciyaan laakiin Ethiopianka iyo Bangladeshka iyo kuwaas dharbaaxay kaga qaadaan waxba uma arkaan waa dadkii ugu jecel yihiin Soomaalida marka wax u laayaan waxa keenaya ma baqayaan way iska dhiciyaan iyagana way laayaan marka taas ay keenaysaa Soomaalida ka duwanta marka anigu haddaan soo noqdo marka hantidaydii iyo barnaamijkaas inta markaa shaqeynaysay muddo markaa shaqeynaya aduu dukaan baan share baan ku darsaday mar baa jirtay wax la strike nagu dhacayo strike-gaas waa mudaharaad keenaanoo dadka hadii aan waxba kala garanayno dusha ka marano hal mar hantidii hore loo sii qaato ka sidaas iga baabay mid kalena adigu isna waa iska waxoobay marka aragtida sidaas ay ahayd inkastoo aan jeclaan lahaa wax oo dhanba inaan buug u wada daayo marka adu laba jeer aad wax isku dayday labadii jeerba marna strike-gaas kugu dhacayo waa la boobay mar kalena iska baabaa marka adigu 2018 baan halkaan imi intaanan ka soo noqon South Africa waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dad badan South Africa Soomaalida in lagu laayay maqlaan media laga arkaa Soomaaliduna ma joojisay inay aado maxaa halkaa Soomaalida ku hayo si hadda sheegtay ayagu iska dhiciyaan ka waran hadii ayaga laftarkooda wax dilaan xabsiga la dhigaa Soomaalida niyahow iyaga Soomaalida laftarkooda hadii qofka ay ku cadaato inuu dhacay ma lama dhigo qofka dishid asoo ku dhacaya oo ay cadahay kaamiradii muuqato laguma dhigayo oo dad badan bay dileen Soomaalida oo hadda waxaan garanayaa nin gobolada Gada inuu ka soo jeedo adigu nin Soomaaliyeed inkastoo aanan anigu sheekada markhaanti ka ahayn laakiin waa sheeko caam oo South Africa ka jirta meesha aad dukaanka ku leedahay sideedaba waa meel adigoo sidoo jooga meel ka baxsan magaaladii bixida dukaankaagu way yaraanaysaa ma baxaysid albaabadaadu waa laba aad baa soo ilaalinaysaa marka ugu daran marka habeenkii maalinkii waa saalan kartaa oo wixii kugu dhacayaa ku dhacay laakiin waa taxadaraysaa laakiin meesha ugu daran waa habeenkii haddii kugu soo jabiyaan waa markaadan ku xisaabtamayn nolol gadaal waa inaan ka baxdo laba albaab waa inuu meeshu leedahay aniga waa igu soo jabiyaan hadda waxaas waa baangad dhinacaas ma adiga baangada kugu yaala aniga nin kale yar kale madaxay laba ka dhigeen habeenka istiraagaamiya waa kadib kan labaad kan waa ka shaqeynay shaqaalanka baangadaaba lagu dhuftay habeen inta lagu soo galay baangad baa bartaas keligay ma yarka kale madaxay oo kala bareen hantidiina waa la qaatay xalaal wixii dukaanka oo laay hantiyana way qaatay ma kama hadeen alaabtii may qaadan macnaa wixii lacag oo aan markaa gadnay dukaankaas laftarkiisa alam baa ku xiraa waanu taabanay isla markii ay soo jabiyeen waxaana loo yimi mar aanu dhiig baxnayo
xaaladda iyadu iska noqotay serious yarkiisu waxayba yaa imingii isbitaal markaa dadka inay yimid waxaad muddaa inay sii ogaayeen ambalaastii iyo booliskii iyo ninkii securityga wada socda baa noo yimid kaamirada la inagaga jeeda malaha maya wax kaamera noogama ay jeedin macnaha in meesha balo ka dhacday way dareemayeen waa lagu xisaabtamay waxaan ku soo waday barnaamijkii ahaa macnaha Soomaalida marka ninkaas aan ka rabay inaan kaaga sheekeeyo waxa weeyaan isagoo cunto karsanaya baa tiilka waa meesha maqalka ama meesha lacagta nin baa ku jiray isna cunto soo karinay dabadeedna wiilkii maya astaghfirullah isaga ayaa tiilka ku jiray wiilna cunto u soo karinay dabadeedna way u soo galeen 3 nin baa u soo galay oo nimanka dee wax dhacaya qori bay ku qabteen baastoolad qorigii markay ku qabteen isagana hoos buu u oolaa wuu u diyaarsanaa dhulkuna waa South Africa laftirkeedu way kala halis badan tahay oo meeshaas meel halis badan bay ah waa gobol loo yaqaano Eastern Cape BE baa la dhahaa caasimadeeda dabadeedna baastoolad buu la soo baxay kii ugu horreeyay buu madaxa kaga siiyey tiilka hoostiisa ku dhacay kii dama xabad soo furay isagina waa qabadsiiyey ninka gacanta ku fadhiyo waxa bay ninku maaskari baahan jiray kii dama inuu cararo marka dhabarku xabad kaga dhiftay dabeedna albaabku iska furo waa ka daba tagay banaanka ku dilay isagii saddexdii bay intuu isu jiiday oo istul saaray qaladkaas uu galay one mistake baa xaalad inuu sideed u daayay dabadeedna wiilkii buu yidhi ninkan ciil buu qabay ma garanayo ma walaalkii sii dileen ma waxbaa kulay jiray wiilkii buu yidhi cuntada soo karin intaa ii keento halka ii soo saar miisahan baa muu isticmaalay anaa ninka heerka cadaawadiisa ciilka u qabay dadkii ku dul cunay dabeedna kor bay ka arkeen booliskii waceen booliskii intaysan waceen dadkan wadada cawaanay bay wada soo jabsadeen dukaankii iyo wixii waa ku gilgiseen isagina xabad buu iskaga reebay markii dambe booliska badbaadiyay dee nimankii markii la arkay inay dee qoryo wateen oo hubaysnaayeen xaaladiisa ma garanayo waxay ku dambeysay ma la xiray laakiin sheekadu intaas ay soo gaartay marka Soomaalidu way dagaalamaan waana meel halis badan dhaqaalaha aad ka sameynayso waxa ku weeriya riski aad u daran laakiin wax waa laga sameeyaa dhaqaale waa laga sameeyaa qofkii shaqaysanaya oo wax la soo baxaya wadanku waa saan ku ogaa inkastoo aniga waqti hore ay ugu dambeeyay xilliyadaas oo kale qofka shaqaysanaya sanadkii oo kale muxuu dhaqaale ka sameyn karaa qofka iska bilowga iyo ama qofka dhexdhexaba wallahi hatta qof walba sidoo wax u dhigto way ku xirantahay ma dadkan inta macquulka dhexe inta macquulka orda dhulka laftarkiisa baa kala duwan meel baa lacag badan soo saarta waana meesha khatarta ah meel baa wax badan ka soo galeen dukaanka oo sida dukaamada Soomaaliya kala meesha marka lacagta badan soo saaraysa qofku sanadkii dhaqaale aad u weyn soo saari kara hadda aanu qiyaas ahaan ma cadadi karo laakiin dhaqaale fiican oo wax ku oo Yurub iyo looga maarmi karo Yurub looga maarmi dad baa taajiriina jooga hata milyaneera Yurub iyo waxaas ma joogin milyaneera Soomaaliya jooga oo hindida la baratama ilaahay waxa uu barakeeyay inta dhul mareysay dhulka ugu Soomaalidu ugu hantida badneedniya maya Kenya markii laga yimaado South Africa ma South Africa saasan isleeyahay waa inta aanu tagay sababta wadamadan aan tagay Soomaalidu sidaas ma ku badnay marka loo reebo meesha la yiraahdo Mozambique markii dambe ganacsiga baa ka burburay markaas soo noqotay iska soo noqotay waa xagaan ka shaqo bilowday halkan ka shaqo bilaabay halkan aan adigu muddo waa shaqeeyay ka bacdina baabuur iyo waxbaan iska gatay taxi baa iska shaqaysan jiray waliba taxiga laftarkiisa qola family-ga wax igu dartay lacagtii aan ku gatay macnaha xaalad saas iska ahayd normal bay iska ahayd oo iska keedkanaan qorshahaygu dee kolley waxbaan ku taamayay oo maadaama wixii xaggaas iska soo burbureen waxaan islahaa dee anigu hadda maanta dee nin 42 sano jiraan nin weyn baan ahay muuqaal ahaan laakiin dadku marar bay dhahaan iyo kontankii waxbaa kugu dhaafay sababtuna waxa keenaysaa xanuunkan yar iyo waxaan ma garanaysaa marka alxamdulillah rabbil caalamiin ma sha Allah
cabdisamed sidaan wada daawanayba wuxuu nooga sheekeeyey taariikh badan uu weliba inta badan kor nooga taabtay uu jecel yahay inuu buugga kusoo bandhigo inteeda badan nin mar ladnaa ilaahay baan tida bixiyay ilaahay baana qaada hadda garawa ku nool shaqo doona raba inuu shaqaysto garab u baahan oo caafimaad ahaanna u baahan in laga taageero aan jeclaystay inaan sheekadiisa idinla wadaago sheekada kale uu ka sheekeynayo ahayd sheekadu facebooka soo dhigayay aan laftarkaygu waa arkay xilligaa waxaa keliyoo waagaasna isoo jiitay hadda markuu tiktoka muuqaalkan soo dhigan isoo jiitay waxa sida gobannimada leh oo ilaahay ka cabsiga leh uu hadlayay qof iimaan unbaa dareemi kara muuqaalkanna waad arki doontaan halakan baad ka daawan kadhaan waxaan rajaynayaa cabdisamed lambarkiisana hoos baan soo dhigayaa ciddii u baahan way la soo xiriiri ciddii garab istaagaysa ciddii shaqo ka caawinaysa dhinacan midigtaa oo dhanba culays badan ka dareemaya wuxuu rabaa in laga caawiyo shaqo inuu helo naftiisana ku filnaado cabdisamed baan u dhiibayaa siduu intaa wax ugu daro oo waxa weeye halkaa message uga diro cid walba oo qof walba oo Soomaaliya caawin kara waxa weeyaan wallahi dadka Soomaaliyeed horta waan salaamayaa dadkeena waa dad goob ah waa dad aad u wanaagsan ummadaha kale waxaynu kaga duwanahay dawladdeena 1991 bay burburtay laakiin weli waynu jiraa maanta ma nihin waddanka adugu ugu faqiirsan waxaa laga yaabaa 7 waddan inay naga faqiirsan yihiin oo dawladdii waqtiga iyaga u jirtay weli u jirto sababtaa waxaa iska leh baan leeyahay inaynu nahay dad isku tiirsan marka dawlad ahaan haddaynu u dhimanay bulshaan ahaan umaynaan dhiman waana sababta na caawisay marka dadka Soomaaliyeed waan salaamayaa waxaan leeyahay guul Allahayna siiyo kulligeenba waxaan kale u ducaynayaa dhammaan ummadda islaamka ah in Ilaahay dhibka ka qaado innagana Ilaahay waddankeena inoo hagaajiyo waxaan leeyahay madaxdana Allah inoo hagaajiyo waddankana Allah inoo hagaajiyo wabillahi tawfiiq maxaa fariino qof walba ku daawanaya oo ama company ama qof maaragtay ganacsada shaqada fudud oo jeclaan lahayn in laga caawiyo nooceeda wax fariina wallahi horta anigu maanta xirfad aan leeyahay xirfadaasaan aqaanaa qofku inuu xaqada ka warrama fiican noqdo xirfad ii gaar oo sax oo aan isleeyahay xirfadaas ku shaqeyn kartaa ma jirto horta anigu waxaan baran 1995 baan ka tagay dugsi hoose waqtigaas waxbarashay ugu dambeysay laakiin alxamdulillah maanta waxna waa qoraa waxna waa akhriyaa afka cadaanka galbeedkuna waa luqadayda labaad si fiican baan ugu hadlaa oo dee ana isbaray markaan xaggaa tagayna dee waddanka ingiriis baa looga hadlaa markii dambena waxaan isku dayay in aad wax u akhriyo markii internetku yimina internetkii baan maaragtay iska baray marka alxamdulillahi rabbil caalamiin laakiin xirfad aan leeyahay maanta xirfadaas aan ku shaqeyn kartaa ma jirto waa uun shaqo haddii xataa oo waxaa jirta qofaan dee waxba barano laakiin faham ahaan iyo maskax ahaan wixii isla markaaba la qabsan kartaa inkastoo wax walba u baahan yahay shahaado oo dee wax waddankana wayba yadhaa cid ku shaqaysaa waxay baratay laakiin adigu shaqo waxay rabtay fudud shaqo oo fudud oo aan markaa qaban karo dee waxna iga soo gelaya waa shaqadaas u maraba maxaa ku doorbiday shaqadan dhirta niyo dhirta waxaan ku doortay yar baa iga sheekayay wuxuu yiri niyo 2 geed baan guri ka waraabay 2 kalena guri baan ka waraabiyaa dhowr kalena guri lacag xoogaayo fiican oo 350 bishii iga soo dhacda aduu geedkii dee waa barbaaraysaa waana dhaqaalaynaysaa laakiin wax hawle kaa gelimayso culays ma jiro mana dhibtoonaysi waa shaqo aad u fudud marka sidaasaan isu iri maadaama dee lacagtiina ay sidaa tahay oo lacag fiican ay dhowrka shaqadina ay dhibnay waxaan isiri waa shaqada ugu tooboon marka aan qaban karay darawalnimada dee maanta xirfad ma aha qofku darawalnimadeedu waa automaticna maanta xirfad ma aha oo lama oran karo waa xirfad laakiin aad waqti badan baad darawalaynaya
والله حا إلى South Africa دي إلى هالكان وأنا حا laakiin darawalnimadan oo ku shaqayn karaa miya mase gacanta darawalnimadaas darawalnimada dee waa automatic darawalnimo waa wax easy oo qofka sameyn karo haddii qof oo u baahdo inuu shaqo noocaas u kala darawalnimada ha waa ku shaqayn karayaa inkastoo marmarka qaarkood laakiin hadda waan yara roonahay qonkii marka loo fiiriyo xanuunkii hore ee kaarkii yahay uga yara tagay si dibka noqon doonto ilaahay baas laakiin barkii weli wuu jiraa oo gudaha sida aad u mahadsan tahay waxaan rajaynayaa qof walba oo dhageysta in uu isku dayo si uu garab istaago kaaga mahad celinaa waqtigaaga aad iyo aad baa mahadsantahay bulshada Soomaaliyeed mar walba waxaan ka rajaynaa wax wanaagsan idinkana waa idin mahad celinaa daawashadiina intaan muuqaalka ku kulmi doono salaamullah